ardayda dufcadda afraad ee dhigata kulliyadda beeraha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay cilmi baaris guuleysatay taas oo ay ku sameeyeen caws ay ka keeneen dalka dibaddiisa. Cawskaas oo u adkeysan kara kana bixi kara cimilada kulul ee dalka laguna beeri karo bacaadka iyo dhoobada. Cawskan ayaa waxtar u leh xoolaha waxaana ku jira borotiin sareeya kana qayb qaata koriinada xoolaha waxayna daaqi karaan wax badan. haddaan ka warbixiyo cawskan meeshan ku beeran waxaa loo yaqaanaa Bargeria grass, weliina wuxuu ka yahay variety ama nooc ka mid ah oo loo yaqaano Mulata 2 lahaa. wuxuu asal ahaan uu ka bixi jiray bariga Afrika, sidoo kale inta wadanka uu la qabsan karaa. tijaabada si aan ku ogaanay wadanka uu la qabsan karaa. astaamaha wanaagsan ee uu leeyahay waxaa ka mid ah in uu ka bixi kara heerkulka dhulalka ama wadamada heerkulkooda uu sareeyo. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada heerkulkooda uu sareeyo, sidaa darteed uu ka bixi karaa. waxtarka uu leeyahay calafkan xoolaha waa waxtar aad u badan ayuu u leeyahay, sababtoo ah cawskani waxaa lagu sheegaa borotiinkiisa borotiin contactkiisa inay aad u badan tahay, ilaa 19% borotiin ku dhow ayuu leeyahay. that's why uu calafyada kale uu kaga duwan yahay. xoolaha inta badan borotiinkaasina waxay keenaysaa productionka ama wax soo saarka xoolihii inuu kor u kaco, hadday noqon lahayd caanihiisii inuu kor u kaco iyo xoolihii inay ku naxaano hilibkiisa uu kor u kaco. calafkan waxyaabaha oo calafyada kale uga duwan yahay waxaa ka mid ah waxa la hayo volatility-ga, yacni intee in leeg ay cuni karaan xoolaha, intee soo reebi karaan. tusaale ahaan haddii calafka xoogaa u badan yahay caleen u badan yahay leaf stem ratio ku xiran taas oo haddii caleen u badan yahay oo kale xoolaha wax badan ay ka cuni karaan. Ka sokow in xoolaha ka helaan daaq waxa uu faa'iido u leeyahay deegaanka. cawskan waxaana loo isticmaali karaa bacaad celinta. waxaa jirto marka la fiiriyo bacaad celinta waxaa jirto meelaha ay ku badan yihiin dabaylaha iyo waxaas inta badan carrada waa guurtaa. marka carradaas guuraysa oo kale kan waa loo adeegsadaa marka lagu beero xididadiisa waxay noqonayaan yacni way fidayaan oo carradii way isku celinayaan. marka carro celinta xitaa oo ka qayb qaata deegaanada oo ku badan yihiin carrada inay guurto waa loo adeegsadaa. tani ayaa muujinaysa in da'yarta baranaysa culuumta beeraha u soo jeesteen sare u qaadista wax soo saarka dalka. beeraha ayaana ah laf dhabarta dhaqaalaha dalka.